shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku saabsan dib u eegista qorshayaashii horumarineed ee wasaaradda sanadkii 2020 iyo qorshayaasha la hirgelinayay sanadkan 2021. ugu horeyn wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa soo dhaweeyay shirkan waxaana uu sheegay in laga maarmaan tahay in la yeesho hadaf iyo ujeedooyin waxqabad oo laamba qaadaya sanadka 2021. waxa loo baahan yahay ka wasaarad ahaan dadka mas'uul baynu nahay mas'uuliyadaas waxa aynu qabanayno waa inaynu garan karnaa haddaynu isna dhaqaajiyo istuudiyaasheena hadda baahi badan bay u baahan waxaynu rabnaa balka wasaarad ahaan inaynu agaasimaha guud iyo aniga iyo wasiirku xigeenku inaanu isla eegno sidee ugu dhow habarta istuudiyaasha loo kicin kara istuudiyaashan u baahan in laga bedelo de qaabkii hore oo bal la gaarsiiyo qaab casri ah istuudiyaasha ama ha noqoto kuwa TV-ga ama ha noqoto kuwa idaacadda priority-ga waxaan isleeyahay sanadkan istuudiyaasha iyo guriga baan awoodda saarayaa ka wasiir ahaan idinkana waxaan rabaa inaad igula shaqaysaan waxaan anigu aad iyo aad u soo jeedinay internally inaynu saarno transformation-ka wasaaradda oo ah saddex meelood kow TV-ga qaabkeebuu u noqon karaa competitive oo uu ula tartami karaa TV-yada kale idaacaddeenna qaabkeebay u noqon kartaa idaacaddu runtii waa idaacadda ugu da-weyn dhulka af Soomaaliga lagaga hadlo radio Hargeysa marka la yiraahdo waxaynu u baahannahay maadaama ay sidaa hooyo af Soomaaliga dadka ku hadlo ugu tahay inay qani u tahay in dadka bini'aadankii ay xusuustaan ama dadka af Soomaaliga ku hadlaa meel kasta ay joogaan iyada qudheeda inaynu agaasimo guud iyo wasiir xigeenku inaynu labadaa maxaynu ka bedeli karnaa technically farsamada labadooda maxaynu ka qaban karnaa aniga waxay ila tahay iyo Solna oo mass media-hu hoos yimaado maadaama hadda uu mass media-hu leergaraynayo dadka iyo dalkaba iyo caalamkaba oo aynu ku jirno digital era wax lagu tilmaamo waxyaalaha aan isleeyahay wasaarad ahaan inaynu ku tallaabsano oo aynu haddaynu guntiga isku geejino aynu wax ka qaban karno waxaas ka mid كان وحياتها وزارة صدح واحد عن شعري شعر أقاسم كتير فيها إذا عدا هي صولنا صدح راسي قرشة عد حكاية كوزير هان أمر كان بحنا يا وحوي وحنا قرتان كأنه وحضرنا وإن النظام practical شو بيان must be practical ولا أقول يا 30% هذا تارجت يرتو أو أدمال وحقرته وقول كي بصدن ويلو أقول يا إني خصومي ويا لكن وإن تكون وقت 70% وحي عاد قرشي سيئنا فلوس لكن هو مركز أدو أكتحي سيدا إيقاب كله فلوني مينس كله فلوني أدو أكتحي sanad kasta qalab baa loo gadaa nimanka la yiraahdo dhaqanka every year shantii sanadood u dambeysay sanad kasta lacag baa ugu jirtay sanadkana way ugu jirtay sama de qalabka hadaynu iska keeno qolun baynu buuxinaynaa Soomaa de qalabka aynu sanad kasta la keenayo waa inuu horumar sameeyaa waxda fanaaniinta waxaynu uga baahannahay de inay shaqada la yimaadaan oo qolada la yiraahdo iyada u dheedu
lacagta gaarkay ku qoran tahay ee la yidhaahdo xidigaha waxaynu uga baahannahay inay la yimaadaan production iyo wax soo saar. qoladeena kale ee wasaaradda ka tirsanna waxaynu uga baahannahay qalabka wixii aynu ku taageeri karno diyaar baynu unahay, ka miisaaniyad ahaan wixii awoodeena diyaar baynu unahay, laakiin waxaynu u baahannahay inaynu helo wax dadka iyo dalkaba anfaca. dawan oo kale maxaanu u haynaa ku tari karaa? horumar bay u baahan tahay, in la tayeeyay u baahan tahay. maxaanuba tari karaa haddii gudaheeda uun laga fikiro la yidhaahdo war maxaynu within the dawan waxa ay haysato sidee ugu habboonee loo isticmaali karaa? qaabkaan rabnaa inaan u fikirna waa sida marka aniga waxay la tahay priority-ga 3 waaxood plus daatada 4 taabal aan isku dayno agaasimo guud. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan mudane cabdinaasir cumar jaamac ayaa isaguna sidoo kale soo dhaweeyey shirkan kuna tilmaamay mid muhiim u ah horumarka qaranka gaar ahaana wasaaradda warfaafinta. waxaanuu sheegay in laga maarmaan tahay in la yeesho qorshayaal iyo jaangooyn lagu hawlgelayo sanadkan 2021. waxaana sii wanaag iyo farxad inoo ah inaynu sanadkii labaad si qurux badan aynu maanta u joognay inaynu halkii kasii wadno inaynu dejinno oo qorshayno howlaha shaqo ee muhiimadda u leh wasaaradda ee wax ka taraya shaqooyinka waajibaad ahaan wasaarad ahaan aynu qaranka u hayno. haddaynaan qorshe lahayna macnaheed waxa weeyaan inaynaan meel loo soconin. kulanku muhiimadda intaa leeg buu leeyahay. inta badan marka sanadkii qorshahan oo kale la sameynayo waxaa lagama maarmaan hadday wixii aynu ku hawlgelaynay in la helo. marka xilligan aynu iminka gabagabadii January aynu gacanta ku hayno macnaheedu waxa weeyaan inaynu ku xisaabtamaynay miisaaniyadda qaranka 2021 wixii inooga ansaxa inaynu wax ku qaybsanno oo wax qabadkeena ku salayno oo kulan inaga soo daahay maaha. qodobka labaad markaynu qorshahan oo kale sameynayno waxaynu u baahannahay waxa weeyaan inaynu ku qorshayno oo aan rajaynayaa inay insha Allah qorshaha 2021 sameynayna ka mid noqon doonaan waxqabadyo iyo qorshayaal ha noqdaan kuwa maalinlaha aynu qabanayno ha noqdaan kuwa mashaariicda horumarka wixii suuragal ah laakiin inay noqdaan qaar taariikh kaga taga wasaaradda warfaafinta oo wax weyn ka bedela qaab muuqaalka maanta aynu shaqo ahaan hayno oo waxa weeyaan waxaan u qorsheynaynaa waxa weeyaan halkii sanadkii hore taagnayn inaynu ka dhaqaaqno oo aynu sanad walba sanad kale sidaa ku sii kordhiyo waxqabadka wasaaradda qaranka aynu ugu hayno. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland mudane Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa sheegay in ujeedada shirkan ay tahay hirgelinta iyo dib u eegista mashaariicdii hore iyo aanbaqaadka qorshayaal cusub oo wasaaraddu ay ku hawlgelayso sanadka 2021. waxaynu isku nimi inaynu dib u eegis ku samayno oo aynu eegno qorshihii sanadkii 2021 ama yearly work plan-kii waxyaabihii runtii wasaaradda qorshaheeda ahayd inooga suurta galay iyo inaynu sanadkan qorshaysano oo aynu samayno yearly work plan amaba qorshe ay ku shaqeyso wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu. sideedabana institutionku amaba marka wasaarad amba institution laga hadlayo way yar tahay amaba waa adag tahay haddaanu lahayn qorshe sanadeed uu ku shaqeeyo institutionkaasi. runtii waxay noqonaysaa amaba way adag tahay si objectiveskii iyo ujeedadii institutionkan runtii loo aas-aasay amaba himilooyinkii uu doonayay inuu gaadho in waad guulaysataa runtii haddaanad lahayn meelo iyo waxyaabo cayiman oo aad runtii aad qorshaysay sanadkan inay ku suurto galaan amba meela runtii aad ugu talagashay inay gaadho. markaas dhaqankeena Soomaaligana kulley reerka marka la rarayo meel loo rarayo waxa ka horeeya in qof sahan tan waxay la mid tahay sahankii reerka uu guuri jiray marka intaanu guurin uu qof u sii sahami jiray uu meesha uu degayo iyo meesha uu sii hoyanayo iyo halku biyaha iyo baadkaba runtii uu ka helayo
in uu maantana tanoo kale waxyaabaha aynu doonayno sanadkan inaynu qorshaysano in aynu qoranno oo aynu isla ogaano oo waaxyaha iyo shaqaalaha iyo wasiirka iyo agaasimihuba ay u caddaato sanadka qorshaha la qabanayo iyo waxyaabaha activity-yada ku dhex jira si cad oo qoran runtii aynu inoo caddaato. agaasimaha waaxda qorshaynta mudan ee cabdiqaadir daybaskar ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in sanad kadib la isugu yimaado kulankan islamarkaana dib u eegis lagu sameeyo mashaariicdii hore si loo amba qaado qorshayaal cusub oo lagu howlgelayo sanadka 2021. maanta waxa uu farxad weyn ah in sanad kadib aynu iskugu nimid maalin ama shir aynu ku garfaynayno dib u eegista qorshihii sanadkii hore ee 2020 isla markaana aynu dejinayno qorshaha sanadkan lagu maamulayo wasaaradda guud ahaan. sidaad ka war haysaan qorshaha qaranku wuxuu ku tiirsan yahay 4 dhadhaar oo waaweyn. dhadhaarka koowaad waxa weeyaan waa qorshaha horumarinta qaranka ee labaad oo wixii natiijooyin iyo maxsuul ah loo raacayo inuu qorshahani waafaqsanaado. qorshaha labaad ee aynu qaranku aynu raacaynaa waxa weeye qorshaha siyaasadeed ee xisbiga talada haya ee kulmiye ama political manifesto kulmiye qaybtiisa warbaahinta iyo dhaqanka ku saabsan.